hadri maay ruuxiita binaniyo barbaaray degelko tadaylo aadban qalad kale haduu jiro holi ugu dayni bonin maayo ka salaamaya ummadda Soomaaliland meel kasta joogto waliba meerkii iyo ku xigeenkii nimanka qaaliya ee gabilay sanu dhisay dhalinyarada hergeliyay oo quruxdo sameeyay waa wax lagu faano insha Allah waxaan qaban karnaa qabanna dhalinyaradu waxaan maanta ku tibcani weeyaan si ciyaalkeena kala weeyaan waxaan barnuun baa iyagana hadhow tala anfaca markaas weyneed ugu fikirteen waa wax la yaab leh garoonkana waa garoon aad u qurux badan oo ani tiraade lagu magac taray taana oo mahad celinaya ummadda Soomaaliland waxaan markasta waan la joogaa waan jecelahay saa ogeysiis laakiin waa inaan ku dadaalno maanta magacayga ka faa'iideysano oo caalamka meel kasta ka tusno iyo dhalinyarada wax tusno soo wax bariyo isku aayaan ayagu uma inoo fikirnaa oo sal loo sameeyaa halka joognaa waxa weeyaan stadium Mo Farah Gabiley waa mid ka mid ah garoomada ugu caansan ee ka jira gobolka uguna qurux badan leh inta badanna lagu ciyaaro dad badan ay runtii riyaaqeen ka dawlad ahaan waxaan ku sharafnay inaan ku maamuusno maadaama ciyaartooy caan ah oo reer Soomaaliland uu yahay gaar ahaan gobolka u dhashay annagana waxaan maamuus ahaan uga dhignay inaan garoonka ku maamuusno maxamed garoonka ku maamuusnay magacaaga la raada Mo Farah Stadium bal lagu ciyaaraa magaciisa lagu ciyaaraa nasiibna oo noqotay maanta inuu isagoo Soomaaliland soo booqday la kulmo garoonkii magaciisa loogu magac daray waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inta garoonka ka dhiman maanta markuu arko inuu wixii ka dhiman dadaalkiisa ku dari doono maadaama isaga lagu maamuusay maadaama in Soomaaliland u dhashay ku faraxsanahay in maanta uu nagula sugan yahay garoonka oo booqasho uu dalka ku yimiday uu ku soo maray oo jeclaystay inuu runtii soo arko ciyaaryahanka caanka ah ee Maxamed Faarax u carara wadanka Ingiriiska runtii dhalashaana ka soo jeeda Soomaaliland gaar ahaan gobolkan degmadan joognay Gabiley runtii sharaf iyo farxad bay noo tahay inuu noo yimaado booqashadiisa wax weeyaan garoonka laftiisa uu soo eego soo indheeyo annaga ahaan ka dawlad ahaan waxaanu garanay runtii inaanu ku maamusno oo aanu garoonkan ugu magac darno oo garoonka ugu weyn ee kubadda cagta ee gobolku leeyahay inaanu ciyaartooygeena caanka ah ee reer Soomaaliland ee reer Gabiley aynu ugu magac darno garoon Soomaaliland oo soo daawasho tagto oo leeyahay garoonkii Mo Farah aan soo daawan oo nimaadno oo gobolkan ku soo kordhiya socod badan iyo transportation badanna ee kordhiya reer Soomaaliland ay soo booqdaan inuu noqdo Mo Farah ku xiran tahay insha Allah taala garoon standard ad ka dhig gobol Gabiley iyo lamba u soo hooya adigana runtii macna badan ku kordhiya dadka Gabiley iyo bulshada iyo dadka ku nool iyo dawladda hoose iyo dhamaantood maamulkuba ugu sharfeen inay magac bixiyaan adigu aan ogeyn taas waxay keenaysaa runtii sida ay ula socdaan dhaqdhaqaaqaaga iyo dareenkaaga farxad bay u tahay markastoo aad ordaysidna ducada la raaciyaa